الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي أفرية طبنات هي كتاب كان تحفة المولود بأحكام المولود للإمام ابن القيم رحمه الله. باب كان شيخ حواه ليا ختان المولود المهر شيء يقدتان كيسة قدتان كمعنيه مركا وإن لجرو مقار كير أو كدبولا حبن كترنك ويلشة انت هوره gabdhahana hilibka yar oo isaguna xubanka taranka in wax laga gooyo sidaasaa la yidhaahdaa. waxaa lagu magacaabaa mowdicul khatna, waa la yidhahdaa meesha guditaanka, sida xadiidkii ida altaqa alkhitaanaani wajaba algusl uu tilmaamayay. labada gudnin hadday kulmaan waajiba waxaa imaanaya in la qabaysto. waxaa lagu magacaabaa dumarka khafdina waa la yidhaahdaa, raggana khatni baa la yidhaahdaa. إبراهيم عليه السلام صحيحين كسيدة كسوغان بخاري مسلم وإسقودي إساقو أو سيديتين جرأة تقريبا بالقدوم. قدوم كعلماء قار وحيدا وموضع بالشام وميل الشام وضن كليرا كتالا، لكن سيدة الراجحة والذي وإسقودي وأما قدن لأوران كارو أما waxyaabaha dadka wax dhisaa ay haystaan oo maartay biraha iyo ku jarjaraan geedaha lagu gooyo. say doontaba ha noqote isagoo weyn buu iskuday. marka waxaad dareemaysaa guditaanku xitaa markaad yareed haddii aan la gudin qofka inuu weli loo baahan yahay in la gudo. mashruuciyadiisa inuu mashruuc yahay oo shay loo baahan yahay uu yahay khisaal fitra buuba ku jiraayo. bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan rasuulku yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam alfitratu khamsun. fitrada islaamka lagu dhashaay 5 weeye. waxaa ka mid a alkhitaan guditaanka, alistixdaad waa timaha in la xiiro hoose, iyo qasu shaarib iyo in shaarubada iyagana la jaro oo raggu ay jaraan, taqliimul adaafir cidiyaha in la iska gooyo, iyo nadful ibti in kilkilaha oo kale timaha ku yaala iyagana la tifo, yacnaa in la jaro oo la gooyo iyagana. marka shantaasiba waxay ka mid yihiin. shanta waxaa ugu sii sarreysay ibnulqayim leeyahay khitaanka ayaa sida loogu hormariyaba yaa dareemaysa. fitradu waa 2 nooc oo midna qalbiga ayay ku tacalluqdaa, waana macrifada ilaahay iyo jacaylkiisa iyo ilaahay oo laga dooro waxa ka soo haray oo kale. midna badanka iyo jirka ayay ku tacalluqdaa, waana weeye midda tahaarada iyo nadaafada oo mid hadda aan ka hadlayno ku kaamil noqonaysa wey. xugumkiisu muxuu yahay marka? guditaanka xugumkiisu waa maxay? xugumkiisu fi xaqi rijaal, xagga ragga marka la yidhaahdo, imaamu maalik isagu wuxuu yidhi waa sunni, oo weliba waa sunno aada u adag oo qofku hadduusan gudnayn imaam ma noqon karo buu leeyahay, shahaadadiisana la aqbali maayo. axnaafta xanafiyadu waxay leeyihiin waa waajib, iyaguna waxay yidhahdeen waa sunni, laakiin shaaficiyadii xanaabiladu waxay yidhahdeen labadaasi waa waajib. ibnu taymiya raximahullah wuxuu leeyahay ragga wuxuu ku yahay isaguna cadami wujuubi cala nisaa, dumarka waajib kuma, laakiin ragga waajib buu ku yahay. sida marka raajixa masalada haddii aan qabanno, ragga horta labadoodaba waa shay mashruuca oo loo baahan yahay rag iyo dumarba in la gudo, laakiin ragga waa waajib, dumarkana waa sunna mu-akada waa makruma weeyaan. waqtiga uu waajibaya waa goorma? waqti gooni ah sida raajixa ma leh. cinda albuluuq bay culimada qaar yidhi markuu qofku qaan gaadho oo takliifta iyo cibaadaadka la saaro, xilligaasaa lagama maarmaana in la gudo. ibnu cabaas waxaa la weydiiyey markii rasuulku geeriyoonayay sala allahu calay wasalam meeqaad jirtay, wuxuu yidhi waxaan ahaa waana yowmaidin makhtuunun, waan gudnaa. dadkana inta badan ilaa ay idraak iyo ka yeeshaan lama gudi jirin baa layidhi xilliga. ibnu cabaas marka sida ay tilmaamayaan siirada 13 jir taqriiban inuu ahaa ayay ku tusi. marka la saaro qofka cibaadaadkii iyo takliiftii iyo salaadii iyo laga rabo in la gudo ayaa imaanaysa waajibkiisu xilligaasoo imaan. ka horna waa la gudi karaa. culimada qaar waxay yidhaahdeen maalinta 7aad ayaa habboon in la gudo. marka qaarna waxay yidhahdeen waqti go-aan ma leh. rasuulka sala allahu alay slam adilada qaar baa tilmaamayay inuu rasuulku xasan iyo xusein uu markuu caqiiqada iyo wanqalka u sameeyey gudayna maalintii 7aad.
xukmada xugumkii xikmada ku jirtaa maxay tahay? khitaanku xikmad badan buu leeyahay iyo fawaa'id baa ku jira. in la isgudo faa'iidooyin badan baa ka mid a. mid waa ka mid oo dukhuul fii millati ibraahim, diintii nabiyullaahi ibraahim iyo gelitaankeedaas waxayba u tahay baa la yidhahdaa calaamad lagu garta ayay tahay, oo waa sibqat allah, waman axsanu min allahi sibqa. taasna oo culimada qaar ay ku fasireen mujaahid iyo fitrada ilaahay inay tahay. khitaanku waa tahaaro iyo nadaafo iyo isqurxin iyo khilqadii qofka oo la toosiyo oo la hagaajinaya wey. waxaa weeye mar la kale haddana shaydaanku wuxuu isku qariyaa, uu ku gabadaa waxa cidyaha dheerdheer iyo timaha hoose oo iyaguna dheeraada, kuwa kilkilaha oo dheeraada, shaarubaha oo dheeraada, iyo qofka aan gudnayn maqaarkaas la raba in la gooyo un gudnayn. intaaba waa meelo isku qariya wey. nabiyullaahi ibraahim markuu ilaahay subxaanahu watacaala uu imtixaamay umuurtan inuu zuuliyana lagu imtixaamay buu ilaahay subxaanahu watacaala faatamahun yujacalahu linnaasi imaaman uga dhigaa la yidhahdaa. khitaanku waa takhliid, waa ixyaa lisunnati ibraahim, sunnada nabiyullaahi ibraahim oo la waarinayo oo jiraysa ayuu yahay. sida sacyiguba uu yahay isaguna takhliid ama waarin. sacyigii haajara ay iyaduna oraday meeshii safa iyo marwa dhexdooda, sida rajmigu marka xajka la jooga buuraha la tuuraya isaguna takhliid lirajmi ibraahim ashaytaan uu isaguna uu rajmiyey ay ugu tahay. marka